subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada warka subax ee raadiyo kulmiye qodobada aad saaka maqli doontaanna waxa ugu waaweyn gudoomiyaha golaha shacabka oo bedelay xubno ka tirsan guddiga maaliyadda ee golahaasi xaaladda deegaanada ay ku dagaalameen labada beelood ee Maxaas Hiiraan oo saaka degan xildhibaanada Hirshabeelle oo ku kala qaybsamay xalinta beelaha ku dagaalamay gobolka Hiiraan ganacsade gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee shaqada laga joojiyay ku eedeeyay ku takrifal awoodeed ciidamada Puntland iyo Daesh oo xalay ku dagaalamay qaybo ka mid ah deegaanada Buuraleyda Galgala faahfaahinno ka soo baxaya weerar bambaano oo lagu qaaday magaalada Mandheera haweeney afduub loo haystay 30 sano in ka badan oo la sii daayay iyo caruur ku geeriyootay xabsi uu Mareykanka ku leeyahay xuduudda Mexico waa subax Arbaca taariikhduna ay ku aasaysan tahay 26 bisha 12 December 2017 warka subax saaka waxaa la diyaaraa wariyaheena Cabdullaahi Xuseen Canshuur cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim oo mahadsan tahay war soo saaraheena saaka bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan dhageystayaal warkii oo dhan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa waxa uu bedelay xubno ka tirsanaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan dhameystiraya wareegto ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa lagu go'aamiyay in dubaabeen lagu sameeyo guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka guddigan ayaa hore waxay u soo saareen warbixin miisaaniyadeedka sanadkan aynu ku guda jirno kaasoo si weyn loogu dhaliilay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir kuwa oo lagu sheegay inay lunsadeen qarashaad fara badan intaa kadib ayaa waxa ka dhashay arintaasi buuq fara badan oo sababay in gudoomiyaha xogeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey uu kala diray guddigan xiligaasina gudoomiye Mursal uu ka maqnaa dalka balse markuu soo laabtay gudoomiyuhu ayaa waxa uu shaqada ku soo celiyay guddigii maaliyadda ee la kala diray isagoo faray markaasi inay si wataan shaqadooda iyo warbixinada miisaaniyadda dalka ay ka diyaarin jireen buuq kale oo ka dhashay arintan ayaa waxa markii dambe la isku afgartay in si hoose loo xaliyo waana tan keentay in dubahabeen lagu sameeyo guddigan maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee haatan dubahabeenta lagu sameeyay ayaa waxa la faray in miisaaniyadda 2019 ay horkeenaan golaha shacabka 30 bishan aynu ku guda jirno si loogu codeeyo Axmed waa mahadsan tahay markana Hiiraan xaaladda deegaanada ay ku dagaalameen labada beelood ee Maxaas Hiiraan ayaa waxa ay tahay saaka mid degan iyadoo dhanka kalena xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ay ku kala qaybsameen xalinta beelaha ku dagaalamay gobolka Hiiraan Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa warkan saaka inoo soo diray waxaa saakay degan deegaanadii shalay dagaalada ku salaysan aanooyinka qabiil ayaa ka dhaceen ee hoos tagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo dad badan ay ku dhinteen iyadoona ay soo baxayaan baaqyo nabadeed oo loo jeedinayo dhinacyada ku dagaalamaya qayb ka mid ah gobolka Hiiraan kuwaasi oo ku aadan in la joojiyo dagaalka si nabad ahna deegaanka loogu wada noolaado mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo maalmahan ku hawlana daminta colaadaha ka jira deegaano hoos yimaada degmada Maxaas ayaa ku kala tidwanaaday habka loo damin karo dagaalada ka socda gobolka Hiiraan xildhibaan Geelle Isaaq waxa uu sheegay in maamulka Galmudug uu ka gaabiyay joojinta xiisadaha colaadeed ee ka dhaxaloosan labada beelood ee ku wada dagaalamaya gobolka Hiiraan runtii waxaan sugaynaa maamulka dowlad goboleedka Galmudug ayaguna waxay aad u gaabiyeen inay arrintaas wax ka qabtaan waxaa la xiriiray gudoomiyihii gobolkaas oo Galgaduud waxaa la xiriiray madaxdii dowlad goboleedkaas Galmudug waxaa guud ahaanba noo suurtageli waaya inay nimankaas yimaadeen si aan u dhexdhexaadin maadaama dadka ay ka soo kala jeedaan labada deegaan waxa way dad badan oo dowladana inay soo fadhiyo dareemaysaa waxa yarba wax walba daqiiqad kasta wax ka dhici karo haddana waxba dhacay baa la sheegay hadda maxasan ku soo naadiile wallahi dhulka lagu dagaalamay kulli dad oo xoololey oo soo fadhiyo sharci kala celin laga sii dagaal ku dhici karaa hadda galabta ayaa wax dhacay leena maqribkii
haddana way joogsan. xildhibaan nuur xaashi oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabelle ayaa sheegay in la wado dadaalo lagu doonayo in lagu kala dhex galo beelaha ku dagaalamaya deegaano hoostaga degmada Maxaas isla markaana maamulka Galmudug uu ka codsaday inay si degdeg ah u soo kala dhex galaan dadka dagaalamaya. laakiin waxaan isleeyahay fikirka Galmudug la'aanta wax ma soo qoonayaan ma waxaad hadda leedahay inaan adigu ka soo jeedo matabaan ku sheegay adigu hadda bal qiimay adiga wariyaaw Hirshabelle joogan xildhibaan ka ahay asaguna beledweyne oo ka yimid waxa uu xildhibaan ka yahay Hirshabelle ma waxaad leedahay marka xaaska loo yeeraa oo waara kala hadla arinta mantaqana matabaan saas bay leedahay maxaadna isu weydiinina labadiina idinka asaastay oo ay shaqadiinii baarlamaan iyo dadkii deegaankii dagaalamay idinkay xal idinka rabaan maxaa isu weydiin weyseen su'aasha asaga waxaad weydiiyeen dadka dagaalamay waxa uu kala baxaa juqraafiga waa loo kala baxaa dokumenti yaalina kartanista waa jiraan maada siyade siyade warqad dhalasho ay kala wataan lagu tarakooba ninkaas weydiiyay aan waxaan ku leeyahay warku ku hadla wax dhibad ma baanan ku leeyahay maxamed cabdiweli tooxow idaacada kulmiye dhuusamareeb. markana muqdisho ganacsada ayaa gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee gobolkani Banaadir ka oo shaqo joojin lagu sameeyay waxa uu ku eedeeyay tigrifal awoodeed inta aan shaqada laga joojin ka hor. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhameystiray. iyadoo maalmo ka hor shaqada laga joojiyay gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Axmed Maxamed Xasan ayaa ganacsada la soo xiriiray idaacada kulmiye waxa uu sheegay in gudoomiyaha uu ku sameeyay ku tagrifal awoodeed. yuusuf cali madoobe oo ah ganacsada maruu keenin la soo xiriiray waxa uu sheegay in gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Axmed Geedo uu ka hor istaagay ganacsi uu degmada ka fulin lahaa isla markaana uu weydiistay lacag baad wuxuuna intaas hadalkiisu ku sii daray in gudoomiyaha uu ugu dacwooday maxkamadda gobolka Banaadir. waxaan idaacada ula soo xiriiray waxaan cabasho ka nahay gaar ahaan aanu nafteeda ka hadlay marka hore gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Mr. Geedo oo dhibaato noo geystay oo ku saabsan shaqooyin oo ganacsi oo naga hor istaagay asagoo codsanayo lacag baad ah sidoo kale anagoo degmada ugu tagnay dhul oo jidkiisii dadka qaarkood dariska ay ku soo sikadeen asagana oo yiri ayadoo lacag aan la bixin waxba ma suuragalayaan waxaan tagay maxkamadda oo soo cadeysay iyo gobolka Banaadir in jidkaas guriga meesha aan ku lahayn jidkiisii inuu xiran yahay warqadii markii u timid oo maxaan ku lagu cadeeyay in jidkaas uu xiran yahayna oo ku xujiyay in lacag uu u baahan yahay caqabadii oo faraha badneed markaan la kulanay lacag uu codsanayo lacagihii qaar aan bixinay kadibna oo dhinacii kale haddana aan anagoo aad 100% qabno in dhinacii kale asiga lacag oo ka qaatay kadibna halkaas waxba noogu suuragali waayeen ma garat waxaan ka codsanaynaa anagoo marka hore ku hadlaya magacayga iyo magaca dad badan oo dhibanayaal ah degmada Yaaqshiid waxaan ka codsanaynaa in ninkaasi ay maxkamadda soo joojiyaan gudoomiyaha degmada. Axmed Maxamed Xasan gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ayaa maalmo ka hor waxaa shaqada ka joojiyay maamulka gobolka Banaadir sida la sheegay iyadoo lagu haysto musuqmaasuq. wararka naga soo gaaraya buuraleyda galgalo ee Puntland si gaar ah meel aan ka fogeyn oo 25 kiiloomitir qiyaastii u jirta Qandala ayaa waxa ay sheegayaan in uu dagaal ku dhex maray kooxda Daacish iyo ciidamada daraawiishta ee maamulka Puntland waxaana weli la helin xogta rasmiga ah ee ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkan oo dhacay xalay fiidkii hore. dagaalka ayaa la sheegay inay soo qaadeen Daacishta Soomaaliya ee ku dhumaaleysanaysa buuraleyda Galgala iyagoo oona weerar ku qaaday fariisimo ay ku leeyihiin meel u jirta 25 kiiloomitir qiyaastii Qandala oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Puntland. ciidamada ammaanka Puntland ayaa la sheegay inay iska caabin ku sameeyeen isla markaana uu dagaal ku dhex maray ka oo qaatay muddo saacad ku dhow waxaana dadka deegaanku ay ka yeedeen u sheegeen in ciidamada ammaanka Puntland ay saaka halkaasi ka wadaan baadigoob ku aadan halkii ay ku noqdeen kooxda Daacish ee iyadu weerarka soo qaaday.
wixii kusoo kordha wararkeena kale iyo barnaamijyadeena ayaad ku maqli doontaan. sidoo kale waxaad ka daalacan kartaa boggayaga radiokulmiye.com. faahfaahinno dheeraadana waxa ay kasoo baxayaan weerar bambaano oo lagu qaaday magaalada Mandera ee Kenya. Cabdulaahi Maxamed Cali ayaa warkan eegaya. 4 ka tirsan booliska dalka Kenya gaar ahaan kuwooda qaabilsan ilaalinta xuduudda ee dowladda Kenya la wadaagto Soomaaliya ayaa la dhaawacay kadib markii kooxo aanan heebtooda la aqoonsanin ay weerar ku qaadeen. Gudoomiyaha degmada Mandera Kotiswa Ologa ayaa sheegay in askarta ku dhaawacantay weerarkaasi la geeyay isbitaal ku yaala degmada Mandera. sidoo kale gudoomiyaha degmada Mandera ayaa intaasi sii raaciyay in ay wadaan baaritaano ay ku baadigoobayaan kooxihii ka dambeeyay weerarkii lagu dhaawacay askarta Kenya ka tirsan. booliska weerarkan lagu dhaawacay ayaa ka tirsanaa askarta dowladda Kenya u qaabilsan ilaalinta xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya iyagoona waqtigii la weeraray ku sugnaa kaalin shidaal oo ku taala degmada Mandera ka hor inta aan lagu toorin bam gacmeed. degmada Mandera ayaa bariyay ugu dambeeyay ka nasatay weeraro intooda badan kaga imaan jiray dhanka Al-Shabaab. dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dhowr jeer oo hore sheegtay mas'uuliyadda weeraro ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay gudaha dalka Kenya. halka warkaas aad kala socotaan waa KNN Hirka FM 88 MHz. waxaa inoo soo socda akhbaaraadka Soomaalida ka baxsan balse markan duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono. haweeney u dhalatay wadanka Argentina oo koox dadka madax furasho ka qaadatay ee afduubteen sanadkii 1980 ayaa la soo daayay waxayna dib ula midowday qoyskeedii kadib markii ay howlgal ku soo furteen ciidamada booliiska Argentina iyo sidoo kale Bolivia. meesha lagu hayay haweeneydan oo iminka da'deedu ay tahay 45 sano jir ayaanan la ogeyn wixii ka horeeyay horaantii sanadkan sii dhamaanaya ee 2018 xilligaas oo booliisku ay heleen akhbaar ku saabsan in lagu hayo magaalada lagu magacaabo Bermejo oo koonfurta wadanka Bolivia ku taala. booliisku waxay intaasi kadib ay ogaadeen meesha uu ku yaalo guriga lagu hayo waxayna soo daayeen iyada iyo wiil ay dhashay oo 9 sano jir ah. booliisku ma aysan sheegin faahfaahin ku saabsan kooxdii mas'uulka ka ahayd afduubka haweeneydan oo la haystay 32 sano. hase ahaatee waxa ay xaqiijiyeen in ay qoyskeeda dib ay ula midowday iminka. ugu dambeyntiina wiil 8 sano jir ah oo u dhashay wadanka Guatemala ayaa waxa uu ku geeriyooday xabsi uu Mareykanku ku leeyahay xadka Mexico sida ay xaqiijiyeen saraakiisha socdaalka ee Mareykanka. ninka aqalka Koongareeska ku matala gobolka Texas ayaa magaca wiilka geeriyooday waxa uu ku sheegay Felipe Alonso. waa markii labaad oo ilmo yari oo bishan gudaheeda ku geeriyoota xabsi uu Mareykanku uu ka sameeyay dadka sida sharci darrada ah uga soo gudba xadka uu la wadaago dalka Mexico. kii kan ka horeeyay waxa uu ahaa wiil 7 sano jir ah oo isaguna lagu magacaabo Jacqueline Clan. isla wadanka wiilkan iminka geeriyooday ayuuna isagana kasoo jeedaa jinsi ahaan. waxaana arinkan dad badani ay ka muujiyeen walaac ku aadan in khatar kale ay ka dhalato xabsiyada Mareykanku ku leeyahay xadka uu la wadaago Mexico ka oo lagu xiro dadka kasoo gudba sida sharci darrada ah xadka labada wadan. warkii oo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho dhageystayaal waa iga inta cidii uu seego waxay dib kaga heli kartaa boggayaga radiokulmiye.com. dhageystayaasheena ku sugan magaalooyinka Beledweyne, Cadaado iyo Gaalkacyo ayaa naga maqli kara idaacadaha Hayaan, Cadaado iyo Wadani. Mareykanka Kala FM ayay iyaguna naga maqli karaan. tan iyo kulan dambe amaan Allah.